السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داود ku soo dhawaada barnaamijka maxaa ka cusub ciyaaraha gaar ahaan suuqa iibsiga. Kooxda Arsenal ayaa la sheegayaa in heshiis rasmi ah ay la gaartay ciyaaryahanka lagu magacaabo Gabriel Jesus. Arsenal ayaa shalay la gaartay kooxda kubadda cagta Manchester City heshiis ku kacaya 45 milyan ay kala soo wareegayso ciyaaryahanka lagu magacaabo Gabriel Jesus. balse waxa dhinaca Arsenal in ciyaaryahankaasi heshiis shakhsiyan ay la gaarto. Arsenal ayaa la gaartay heshiis shakhsi ah ciyaaryahan Gabriel Jesus. ciyaaryahanka ayaa u saxiixay kooxda kubadda cagta Arsenal qandaraas gaaraya ilaa 5 sano isagoo kooxda ku sugnaan doono 5 sano ee soo socota. Qandaraaskaas ayaa dhacaya 2027. Gabriel Jesus ayaa ku soo biiri doona ciyaartoyda kooxda kubadda cagta ee Arsenal ee u safri doonta dalka iyo Mareykanka. Waxaa la filayaa heshiiska in lagu dhawaaqo maalinta Berito Isniin ah. sidoo kale Arsenal ayaa laba kala ciyaartoy hore la soo saxiixatay balse still waxay Arsenal baadagoobaysaa ciyaartoyda kala ah Rafinha oo ciyaar kooxda Leeds oo la filayo isbuucaani inay Arsenal wada hadal la furto toos ah kooxda Leeds. Arsenal ayaa la filayaa markaani inay lacag gaaraysa 50 milyan oo euro miis ku saarto kooxda kubadda cagta Leeds United si ay kula soo wareegi lahayd ciyaaryahan Rafinha. Arsenal ayaa doonaysa in horyaalka xil ciyaareedkan ay isku diyaariso maadaama sanadkii hore 3 kulan ugu horeeyay horyaalka laga badiyay ayadoo ciyaartoyda inta badan ay ciyaaray kooxda Arsenal ay la soo wareegtay ay ka maqnaayeen. Waxa kamid ah Odegaard oo kooxda Arsenal ka tirsanay 3 ciyaar ugu horeeyay sanadkii hore Arsenal laga badiyay. sidoo kale Aaron Ramsdale iyo waxa kamid ah ciyaaryahanka Tomiyasu la yiraahdo. Saddexdaas ciyaartoy ayaa kamid noqday ciyaartoyda ugu muhiimsan kooxda kubadda cagta ee Arsenal xil ciyaareedka la soo dhaafay walow aysan ku bilaaban horyaalka 3 kulan ee ugu horeysay maadaama aysan adiga aysan la joogin. Balse Arsenal ayaa ka fogaanaysa xaalad la mid ah xaaladii xil hore qabsatay ee ahayd in ciyaartoyda ay rabto in la soo wareegto aysan ka daahin kooxda kubadda cagta Arsenal si ay u soo wareegi lahayd. Arsenal ayaa danaynaysa in ciyaartoyda ay doonayso la soo wareegto xil hore. sidoo kale waxa kamid ah ciyaartoyda Arsenal doonaysa ciyaaryahan Lisandro Martinez oo ciyaar kooxda Ajax. ciyaaryahankaasi ayaa Arsenal ay filaysaa inay isbuucan ayadana ay wada hadal la furto kooxda Ajax si ay u soo wareegto. waxaa la sheegayaa in 40 milyan ay ku filnaan doonto inay kala soo wareegto kooxda kubadda cagta Ajax walow warar hadda ay soo baxayo aan la hubin ay sheegayaan in kooxda Arsenal iyo Ajax heshiis 40 milyan ay ka gaareen arrinka ciyaaryahan Lisandro Martinez. Arsenal ayaa doonaysa in ciyaartoyda dhammaan ay haysato intaysan u safrin Mareykanka ay kula soo ciyaareen kulamada saaxiibtinimo ee intaan la gaaray horyaalka la ciyaaro. ma malaynaysaa sanadkan Arsenal inay isku diyaari karto horyaalka Ingiriiska? ma malaynaysaa Arsenal sanadkan inay top 4 gariso hadii la soo wareegto ciyaartoydaas? walow taageerayaasha Arsenal qaar ay leeyihiin waxaan u baahanahay qadaxe booska ninka lagu magacaabo Xhaka booskiisa in la helo ciyaartoy kale oo booskaas ka ciyaari kara maadaama Arsenal Europa League ciyaarayso. ciyaaraha Europa League la ciyaaro maalmaha Khamiista ah sidoo kale horyaalka Ingiriiska la ciyaari doono maalinta Axadda ah. kooxda Arsenal dib ay ku noqonaysaa in hal ciyaaryahan oo ciyaaro labada mar oo u dhaxaysay kaliya 2 maalin. Arsenal taageerayaasha ayaa doonaya in ciyaaryahan kale la helo oo booska Xhaka ay ka ciyaari kara si uu bedel ugu noqdo ciyaaryahan Xhaka hadii uu dhaamo. وكما سنتين داوشة برنامجك يلا صعدك جنالك فلان هدا كو عصبتاي سبسكرايب صار لايك صار فيديو بس أصحابنا وقارو